فرحات أيه نوتاينا برنامج كان نقلا سوق قشان برنامج كان أو برنامج لوجها الله يو شقة قلنتا دلينيرada أما شقة أبوركا لوجنا قريم يو arrimaha la xariira muhiimadda ay leedahay dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo mudane madaxweyne saan ognahayba boqolkiiba 70 wax ka badan bulshadeena waa dhalinyaradaasi runtii dawladda Puntland waxay ka leedahay qorshayaasha 5 sano qorshayaasha ku qoran qorshaha ama siyaasadda dhalinyarada Puntland dhammaan waxay ahmiyad siinayaan yoolasha iyo higsiga dawladana kamid ah sidii dhalinyaradaas loo sameyn lahaa xirfadahoodana kor loogu qaadi lahaa fursado shaqana loogu raadin lahaa runtii mashruucan iyo mashruucaad muhiim ah weeye munaasabada naftigeedu munaasabad muhiim ah weeye daraasadaheeda inaanu helo madaxtooyahaana daraasadaha kale ee la soo bandhigi doonana waa jecelahay guud ahaan horta dawladda waxa ka go'an in la hormariyo dhalinyarada waad arkayseen barnaamijka halkan lagu soo bandhigay in mustaqbal weyni uu dalkan u soo ifayo waxaad arkayseen boqolkiiba 3 baa dadka gaadhay heerka shaqo hawlgabka ah bulshadeena marka taa macnaheedu 95 bulshadeenu waa bulsho suuq shaqada da'deedii joogta iyo bulsho ku soo socota maaragtay xilligii shaqada iyo suuqii shaqada marka dalkan waa dal rajo weyn leh laakiin u baahan rajadaas in looga faa'iideysto in dadkiisa loo diyaariyo fursadahaas dawladdan 5 sano soo socota hadii ilaahay idmo siyaasadda aan ku duulayno waxa weeye dhalinyarada wasaarad gaar ah laga dhigay oo cusub baa loo sameeyay waxaan rabnaa in aan farsamada gacanta iyo xirfadaha aan kor u qaadno waxaan rabnaa shaqooyinka iyo businesska iyo wax soo saarka iyo agriculture-ka in dhalinyaradu laynka ay galaan ma rabno dhalinyaro dambe oo cid hor taagan oo aan rabno inaan xafiiskeeno oo shaqo loo abuuro laakiin waxaan rabnaa in iyagu intay shaqo abuuraan dadka ay shaqaalaysiiyaan waxaan rabnaa in siyaasadda ogaataan aan ku wada socono iskoolo farsamo gacan baa jira madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa caqabada ugu weyn oo hadda jirta oo jaamacadihii in farsamadii gacanta wali aysan diyaarin in maxaan ku dhahay sectorkaas wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha Puntland ku yaala ay naga caawiyaan si loogu diyaariyo ardaydaas sanadkii ugu dambeysay maraysa maalinta ay soo baxaan inay helaan meel takhasusaadkooda ay ku sii qaataan waxaan rabnaa inaan suuqi diyaarino oo dhalinyarada ku dhiirigelino in ay ka qayb galaan beerihii ay beertaan kalluumaysiga ay ka qayb galaan macdantii ay qotaan in maxaan ku dhahay income-kooda iyo xirfadahooda aan kor u qaadnaa rabnaa sida la xusay halbowle inoo yihiin dhalinyaradu waxaana muuqata sida cilmi baarista wasaaradda qorsheynta halka ku soo bandhigtay aad iyo aad uga mahad celinayo warbixin buuxda iyo cilmi baaris qoto dheer oo xaqiiqooyin ku salaysan inay inoo soo bandhigeen aad ugu mahadsan yihiin wasaaradda inay ka muuqato boqolkiiba 30 iyo boqolkiiba 40 markii la isu geeyo xooggeeni waa dhalinyaro waxa sidoo kale la inoo soo bandhigay caqabadaha iyo fursadaha waxaan rajaynayaa marka shirkan iyo mustaqbalka maalmahan dhow oo soo socda waxaa jiri doona retreat xukuumaddu yeelan doonto wuxuu shirkan naga saacidayaa marka inaan xog dhammaystiran geyno golaha iyo golayaasha kale oo dawladda si go'aan loogu qaato oo arrintan looga howlgalo madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin sida laga sharqamiyay xoguhuna ay sheegeen dhalinyaradu waa boqolkiiba 75 haddii aan loo helin maskax aragti jiho dawladeed cid kale ayaa fursad u helaysa oo ka faa'iideysanaysa waxaan soo jeedin lahaa walow su'aalahaas iyo jawaabahaas ay ka soo bixi doonaan doodaha iyo cilmi baarista gadaal noo yaala in la dhiirigeliyo in dawladdu hormuud ka noqoto dib u fiirin lagu sameeyo siyaasadda dhalinyarada la casriyeeyo ay noqoto mid la jaaqaadi karta wacyiga iyo duruufaha jira sidoo kalena madaxweyne fursadda aanoo ka faa'iideysanaya sanduuqa dhalinyarada sanduuqa horumarinta dhalinyarada Puntland 10 sano u dhameysay wuxuu ahaa dood miiska saaran
oo aan laga faa'iideysan fursaddan maanta aan la joogto anoo ka faa'iideysanaya xukuumaddii iyo baarlamaankiina ay joogaan aan ogsoonnahay in miisaaniyad sanadeedkii baarlamaanku ay burfulgaraynayaan bisha Juun waxaan rabaa inaan u qareemo dhalinyarada iyo horumarkeeda in fiiro gaar ah aynu siino qoonda gaar ah siino si wasaaradda iyo bahwadaagteedu ay fursad ugu helaan goobta aan joogno goob ka fog sidaan u gaari lahayn. As you have seen also the projects we're doing are really focused on youth economic and social empowerment, so really skills based for young people to find employment, to find jobs, to improve their skills. And also I've seen like doing these projects for some time now, so we have seen really good changes over the time, meeting with different young people who have actually access now to jobs, did some new, learned some new skills, have now new income, can like provide for their families and communities. So it's very good examples we have seen. haddaan ka soo qaado xirfadaha aan soo qaado ummad kasta ama dawlad kasta ama cid kasta oo horumarta aasaaska ay ku horumartaa waa xirfad adduunku waxa la isweydiiyay waa skills qof yaqaana maadaama fursadda ay leeyihiin waxa la ka faa'iideysta waxbarashada waxa ka qurux badan inuu qofku skills badan u helo waxaan maanta aan aad ugu farxay runtii oo ishadu waxay ku qawsatay la tusay dhalinyaro xirfado la baray wasaaradda iyo hay'adaha bahwadaagta aad baan uga mahadcelinayaa safjidran waxaan dhahayaa wax badan baa soo saarteen oo korontada iyo kharkhaanka iyo laakiin skillka la rabay lagu cilibtiri lahaa shaqo la'aanta iyo gaajada waa kalluumaysiga hadday noqon lahayd dayactirka maraakiibta hagitaanka maraakiibta samaynta dooyaha iyo matoorada samaynta qalabka kalluumaysiga fishing gearska waxaasoo dhan waa xirfado dadku u baahan yahay oo kor u qaadaysa in la helo kalluun tayo leh iyo wax soo saar aynu adduunka kula tartanno aynu iibkeeno waxaan haysanaa wax allaale khayraadkii dabiiciga ah oo warshadaynta ku samayn lahayd warshadahana dadkeena ganacsatada ah maanta kuma baraarugsana laakiin waxay u baahan yihiin in dawladdu ay la timaado siyaasadii ganacsatada loogu jahayn lahaa inay warshado labor intensive ah ay sameeyaan si shaqo abuur ay dhalinyarada ugu sameeyaan dhalinyaradu waa laf dhabarta ummad walba ama adduunkaba laf dhabar bay u yihiin dawlad walba iyo dal walba oo dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee isticmaala tiknoolajiyadda mar haday yihiin dadka ugu badan ee isticmaala tiknoolajiyadda waa in dhalinyarada la fahansiiyo lagu jeeyo xagga tiknoolajiyadda iyo innovation waxaan bartay waxyaabo badan oo aan hore u aqoon tusaale ahaan markaan u baahdo oo kale in aan mara tasho ugu yaraado yacni dirac ama wax oon waxay igu qaadan jirtay waqti dheer in aan aado meesha yacni dadka lagu tolo يعني waxa ii suurta gashay alxamdulillah maanta inaan barto xirfadayda oo aan ku shaqaysto barwaaqo dhigteen wacan inaan dhalinyaro tacbano si aan dhaqso isugu filnaa